1976 inta aan dagaalkii Itoobiya la gelin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dawladda qeybaheeduna waxay markaa marayeen heerarkii ay ugu xoogga badnaayeen diyaarad yar oo dalxiis ah oo dalalka Yurub laga leeyahay ayaa si fasax la'aan ah u soo gashay hawada Soomaaliya dhanka Djibouti xiga. Diyaaraddu waxay ahayd kuwa dadka lacagta leh ay kireystaan, waxaana soo kireystay gabar reer Yurub ah iyo ninkeeda, laba milxiis oo la socda duuliyaha iyo kaaliyihiisa. 6 qof oo kaliya ayaa diyaaradda saarnaa. Dadku sida la sheegay waa dad maalqabeena ah oo lacag leh, dalxiis aroos oo bishoodii ugu horeysay ku jira, waxayna u dhasheen dalalka Scandinavian-ka. dalal badan haddii soo mareen Djiboutina safarku la soo gaaray. Waxay gabadhii arooska ahayd xiisaynaysa jasiiradaha ku yaala bariga Afrika ee Tanzania iyo meelaha u dhow. Haddii taa la go'aansaday waa in hawada Soomaaliya oo geeska Afrika ku taal la mara. Waxaa ogolaanshiyo fasax loo soo qortay waaxda maamulka hawada Soomaaliya, taasoo codsigii diiday. Markii ay ku qanci weyday sababihii ay soo qoreen, mar labaad ayay codsigii dib u soo celiyeen. Jawaabtiina diidmo ayay noqotay, waayo xilligaasi shakiye ayaa jiray, waxayna dawladdu ka shakisay inay basaasayaal noqon karaan ama jawaasiis. caddaymo wax qanciyana ma keenin oo duul isla weyn ayay ahaayeen. Maba soo dhigan meesha dawlad yar oo Afrika ah ayaa hadal idinku soo celin karta. Waa siduu waa hore ka sheegay Ismaaciil Mire, allaha u naxariistee, Richard Cofield kibirkiisa markuu soo wariyey isagoo yidhi kaskiisaba ma gelin wiil yar baa keebka kuu qabane, ragow kibirka waa lagu kufaa, kaaha la ogaado. gabadhii aroosadda ahayd waxaa lagu yidhi meeshii aan iska dayno oo aan meelo kale u beddelano, haddii kale safar wareeg ah oo dheer ayay nagu qaadanaysaa, fasaxyadu inay daahaanna way dhici kartaa. ha yeeshee gabadhii way soo hisay, waxay tidhi inaan xeebahaas badweynta Hindiya soo arko mooyaane lagama yaabo inaan Yurub ku noqdo. duuliyaha iyo diyaaraddu lacag badan ayay qaateen oo hadal ma soo celin karaan. duuliyihii ayaa laba gardaymooday, dibnuhu ilkaha ku qabtay. gabadhii ayuu indhaha kor ugu taagay, wuxuu yidhi okey, waan baxaynaa, hawada Soomaaliya ayaanan maraynaa. diyaaradda aan wadanno waa casri, wayna yar tahay, islamarkaana aad ayay u dheeraysaa, waan ka dhex dusaynaa. asxaabtiisii ayaa ku yidhi Soomaalidu waa kuwa fasaxa inoo diiday, haddaynu marno sow inama arki karaan. wuxuu ugu jawaabay muddo yar oo 45 daqiiqo ah ayaan hawadooda kaga baxaynaa. waa dawlad yar oo Afrikaan ah, ma filaya inay qalab casriya oo na arki kara ay haystaan. haddayna arkaanna inta ay isgaarsiinayaan ama xiriirku socdo ayaan ka gudubaynaa. diyaar garooba, beri subax ayaynu dhaqaajinaynaa. subaxii dambe ayuu duuliyihii diyaaraddu furaha ku wareejiyey.